kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal ku soo dhawaada qodobkan si gaara waxa aan rabaa inaan ugu eego dhacdo weyn oo la yaab ka noqotay guud ahaan dalka Mareykanka gaar ahaanna arrin masiibo ah ay u arkeen dadka reer Israa'iil ee ku dhaqan magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Sokhran Mamdani oo ah mayorkii ugu horreeyay ee magaaladaasi New York ay yeelato sida sawirkiisa haatan halkaasi idinkaga muuqatana ah ninkii ugu horreeyay ee muslim ah oo magaaladaasi mayor ka noqda ayaa cashar lama ilaawaan ah waxa uu u dhigay dadka ka soo jeeda Israa'iil ee magaaladiisa ku dhaqan. waxa ayna ku noqota ayagu qaadan waa iyo filan waa ka gadaal markii uu kala hortagay si adag go'aan ah in uu diiday inuu ka qayb galo dabaaldega maalinta loogu magac daray maalinta dadka Israa'iiliyiinta ah ee New York lagu dhigo. maalintan oo la yiraahdo Israel Pride ayaa waxa ay tahay maalin lagu xuso laguna quweeyo dhaqamada Israa'iil iyo sidoo kale dowladnimo Israa'iil ay leedahay oo dadka Mareykanku ay ku barbar istaagaan dadka Yuhuudda ah. haddaba tan iyo sanadkii 1964 xilli haatan laga joogo 62 sannadood wax ka badan ayaa maalintan ay ahayd maalin si weyn looga xuso looga qadariyo loogana soo dhaweeyo magaalada New York. socod dheer ayaa lagu soo maraa deegaanka Manhattan oo iyadu ah goobaha dhaqaalaha magaaladaasi New York iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka ishuna ay qabanayso waxaana ka qayb gala siyaasiyiin kala gedisan oo heer gobol ilaa iyo heer federaal ah kuwaas oo si weyn u quweeya maalintan gaar ahaanna dadka siyaasadda Mareykanka kale ayagu inay rajo soo galaan maadaama ay tahay halka ay isku soo bandhigayaan oo ay ugu muujinayaan taageerada dadka Israa'iil iyo isbarbartaagooda si markaasi loogu doorto wadankan weyn xubnaha ay raadinayaan in loogu doorto. maalintan oo sida idin muuqataba dadka isu soo baxa ay lulayaan calanka Israa'iil iyo kan Mareykanka ayaa haddaba xuskeeda waxa uu soo bilowday in laga xuso ah gudaha dalkan Mareykanka gaar ahaan magaaladaasi New York sanadkii 1948 markii dowlad Israa'iil ay leedahay sida ay ku dhawaaqday iyadoo ay kaga dhawaaqday bariga dhexe. Mareykankuna uu u aqoonsaday xilligaasi in bariga dhexe dowlad ka jirta Israa'iil ay tahay. wixii waqtigaasi ka bilowday waxa uu bilowday dadka Falastiiniyiinta ah maalmo iyo sannado mugdi ah waxaana laga barakiciyay dhulkoodii ilaa iyo 750,000 oo dad Falastiiniyiin ah oo dalalka dariska la ah Falastiin ku firdhisan ilaa iyo haatan qaar badan oo ka midana dunida inteeda kale gaaray sida xataa Mareykankan aan joogno. waxaa dadkaasi loo diiday sida taariikhdu ay dhigayso in ay xataa dib ugu soo noqdaan guryahoodii iyo wadankoodii ay ka barakaceen ee dhulka Falastiiniyiinta. waxaana jirta in dadkaasi qaarkood ay ku go'doonsan yihiin ilaa iyo haatan oo aysan eheladooda xataa dib u arag ama aysan ugu soo noqonin dhulkooda tan iyo 62daasi sano. waxaana jira dalalka ay ku barakaceen dadkaasi Falastiiniyiinta ay degan yihiin ilaa iyo haatan qaxootigana ay ku yihiin inay ka mid tahay wadamada dariska la ah sida Jordan, Syria, Lebanon, Egypt iyo meelo kaleeto oo caalamka halkaasi oo malaayiin dadka reer Falastiina ay joogaan. waxaana jirta ku dhawaad guryo 1 milyan ka badan oo tuulooyin ah oo dadka Falastiiniyiintu ay lahaayeen oo laga barakiciyay guryahoodii isla markaasina banaanka loo dhigay alaabtoodii dibna ay guryahoodii iyo dhulkooda ay ugu soo noqon waayeen. arrintaasi oo ah arrin masiibo dunida muslimka inteeda badani looga yaqaano ilaa iyo haatan. haddaba waxaa jirto in dhinaca dadka muslimiinta ah amaba xataa dadka reer Falastiin ee maalinkaasi ugu magac dareen ayaguna maalinta la yiraahdo the Nakba oo macnaheedu uu yahay waa erey af Carabi ah maalintii musiibada. 2 toddobaad ka hor haddaba xafiiska duqa magaalada New York ayaa waxa uu soo saaray muuqaalkaasi oo loogu magac daray maalinta musiibada iyada oo ujeedaduna ay tahay in uu Sokhran Mamdani mayorka magaaladaasi New York uu dadka reer Falastiin oo uu horay u sheegay xataa inuu taageero weyn u hayo uu u muujiyo sidoo uu barbar taagan yahay una taageersan yahay iyaga. waxaa jirtay in sida idin muuqataba sawirkan ka muuqata
uu ka hadlay xarunta booliiska ee magaaladaasi duqa uu ka yahay ee New York halkaasi oo uu ka sheegay in ujeedada uu u qaatay go'aanka ay tahay isbarbartaaga uu u sameynayo dadka reer Falastiin awgeed in uusan rabin in uu ka soo muuqdo maalintaasi yuhuuddu ay leeyihiin amaba maalinta dadka reer Israa'iil ee loogu magac daray Israel Pride ee lagu qabto magaaladaasi New York. waxa ay noqotay dhacdo la yaab leh waayo wuxuu noqday meeyarkii ugu horreeyay abid ee aanan ka qayb gelin xuska maalintaasi. waxaa sidoo kaleeto xusid mudan in maalinkaasi ay tahay maalin guud ahaan dadka Maraykanku ay u muujiyaan cadifadooda iyo sida ay ula dhacsan yihiin dadka reer Israa'iil iyo sidoo kaleeto isbarbartaaga dowladda Maraykanku had iyo goor ay u sameysay Israa'iil. balse mas-uulkan oo ah mas-uulkii ugu horreeyay ee muslim ah ee meeyar ka noqday magaaladaasi ayaa taariikh xariiqay toddobaadkan. shalay kamuusa qaybgelin maalintan oo si weyn loogu xusay waddooyinka magaalada New York oo kumanaan dad ah ay isugu soo baxeen islamarkaasina mas-uuliyiin kala gedisani ay ka qayb galeen. haddaba Sokhraan Mamdani waxaa xusid mudan in maalinta masiibada uu si weyn ugu dabaaldegay 2 asbuuc ka hor go'aankiisana uu horay usii sheegay. sanado badan sanadkan haddaba waxa uu ka duwanaa sidii uu ahaan jiray xuska. waxaana jirtay in guud ahaanba waddooyinka magaalada New York oo dhan la xiray 24 saac ka hor xilliga xuska. waxaa jirtay in ciidamo aad u tiro badan lagu soo daadiyay waddooyinka iyada oo dadka ka soo jeeda dhinaca Jawiishka amaba Israa'iiliyiintu ay sheegeen in ay muhiim tahay in ammaankooda aad loo ilaaliyo. sidaas la'alligeedna Sokhraan Mamdani waxa uu sheegay in intii uu ka qayb gali lahaa asaga maadaama uu diiday inuu ka qayb galo xuskaasi uu keeni doono ciidamadii ugu badnaa oo sugaya ammaanka. taasina waxa ay noqotay in magaalada New York lagu arko 2 cisho ugu dambeysay ciidamadii ugu tirada badnaa ee qaybaha kala gedisan ee booliiska iyo militariga oo ah kuwa la soo daadiyay waddooyinka si ay ammaanka u sugaan. Mamdani sida idin muuqataba haatan sawirkaasi waxa uu ka sheegay xarunta booliiska ee magaaladiisa inuusan ka qayb galeen maalintan sababo la xiriira ayuu yiraahday isbarbartaaga aan u sameynayo dadka Falastiiniyiinta ah oo horay aan ugu dhawaaqay ayuu yiraahday in aan barbartaaganahay qadiyada dadka reer Falastiin. waxaa jirta haweeneyda madaxa booliiska ee magaaladaasi oo haatanba asaga barbar taagan isla markaasina ka soo jeeda Israa'iil in ay sheegtay in ay si farxad ay ku dheehan tahay iyo ayada oo ku faanaysa dhaqankeeda iyo dadkeeda ayadu ay ka qayb gali doonto waa sida ay tiraahday isla shirkaasi jiraa'id in ay markaasi gaarto oo ay ka qayb gasho xafladaasi. waxayna sheegtay ayadoo uu barbar taagan yahay meeyarka magaalada New York in uu leeyahay qadiyadiisa iyo aragtidiisa gaarka ah inuusan ka qayb gelin maalintan. haddaba Sokhraan Mamdani ayaa waxa uu noqday ninkii ugu horreeyay ee soo galooti ah ee meeyar ka noqday magaaladaasi New York, ninkii ugu horreeyay ee muslim ah ee meeyar ka noqday magaaladaasi, ninkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee magaaladaasi ka noqday meeyar asal ahaan ka soo jeeda India balse dhinaca kaleeto reerkiisu ama uu ku dhashayba xataa dalkaasi Uganda ayada oo sidoo kaleetana qoys soo galooti ah uu ka soo jeedo taas oo ka duwaysa waxyaabo fara badan meeyaradii asaga ku horreeyay oo qaarkood ay ku dhasheen xataa magaalada New York. waxaa jirta in meeyarada 100 kor u dhaafaya ee magaaladaasi intooda badan ee barbar taagnaayeen dhan kastaba siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo aragti ahaanba dadka Yuhuudda ah. dadka Yuhuudda ah ee degan magaaladaasi New York ayaa markii la fiiriyo waxa ay kaga jiraan dhaqaale ahaan meel aad u sarreysa dadka degan halkaasi. waxaana lagu tiriyaa maalqabeennada iyo madaxda shirkadaha waaweyn ee magaalada New York hoyga u ah in ay iyagu gacanta u hayaan oo ay majraha u hayaan isla markaasina ay yihiin dadka horboodaya. waxaa jirto xusid mudan in maalintan kaliya aysan u soo bixin kumanaan dad ah oo waddooyinka magaalada New York qaatay balse waxaa jirtay oo xusid mudan in sanadkan sidoo kaleeto arrinta oo ka xamaasadaysan xusida maalintan la weyneynayo Israa'iil in ay u soo baxeen siyaasiyiin fara badan oo iyagu caleemaha u lulay Israa'iil calankeedana qaatay sababo la xiriira ayada oo markaasi ay eegayaan sida fagaarahaasi uusan uga soo muuqanin gudoomiyaha magaaladaasi New York.
inkastoo magacyo kala gedisan haddaba sannadihii lasoo dhaafay dhoolatuskan loogu magacdaray Israa'iil waxaa had iyo jeer dhacdo in ay waajib tahay in siyaasiyiin kala gedisan oo reer Maraykan ah ay soo barbar istaagaan islamarkaasina maalinkan ay ka qayb qaataan sida aan soo sheegay in badan oo ka mid ah waxay u baahan yihiin dhaqaalaha maalqabeennada ka soo jeeda Israa'iil ee halkaasi degan in badan oo ka mid ah siyaasiyiintaasi waxay u baahan yihiin in la doorto in badan oo ka midana waxay u baahan yihiin inay magac sameeyaan ayaga oo ka baqaya markaasi in si gaara loo colaadiyana waxa ay soo barbar istaagaan dadka Israa'iiliyiinta ah sida aad ogtihiinba waxaa jiro ururo u ololeeya oo xoog leh Israa'iiliyiinta iyo danahooda gaarka ah kuwaas oo xataa eriyada dadka kuwooda miida ah ee u arkaan inay ka soo horjeedaan Israa'iil waxaa jirta xataa bishii ina dhaaftay oo keli ah dad uu ka mid yahay wadaadka dhalinyarada ah ee asal ahaan ka soo jeeda Falastiin laakiinse dalkan Maraykanka ku dhashay Cumar Suleymaan iyo 10 qof oo kaleeto oo xataa ay ku jiraan siyaasiyiin iyo wariyaal u dhashay dalkan Maraykanka in lagu soo qoray liisto loo leeyahay waxa ay si weyn uga soo horjeedaan dadka Yuhuudda ah amaba dadka Israa'iil u dhashay ee wadankan Maraykanka aragti ahaan looga yaqaano inta badan anti-Jewish ama Israa'iil ayuu qofkan ka soo horjeedaa anti-Semitic iyo wixii la mid ah magacyada faraha badan loogu sameeyay haddaba waxa xusid mudan in siyaasiyiinta aan rabo inaan caawa halkan ka xuso inay ka mid yihiin meeyaradii hore ee magaaladaasi New York oo qaarkood howlgab noqday oo aanan lagu arki jirin fagaarayaasha oo sanadkan si weyn uga soo muuqday sababo la xiriira dabcan sida loo maleynayo hadalka meeyarka magaalada New York ee haatan uu ku diiday inuu kaga qayb galo xuska maalinta lagu weyneynayo Israa'iil waxaana ka mid ah meeyaradaasi ninka la yiraahdo Michael Bloomberg oo isagu ah maalqabeen aad iyo aad nin dhaqaale u haysta ah isla markaasina ka mid ah wax ka yar dhowr iyo 10 qof ee dunida oo dhan dhaqaalaha ka haysta amaba caanka ka ah isla markaasina si weyn uga soo dhex muuqday dadkii shalayto asaga oo howlgab ah oo uu dhex socdo markaasi sida aad ku arki kartaanba muuqaalkan haatan aan soo geliyay wakaa uu calanka wato Michael Bloomberg iyo qoyskiisa xubno ka mid ah dhinacyadana waxaa ka socdo ciidamada ammaanka sidoo kale waxaa ka mid ah Eric Adams ninkaasi la yiraahdo ee African Americanka ah isla markaasina ka mid ahaa meeyaradii horey u soo maray magaalada New York waxaa sidoo kale ka qayb galay xafladaasi hadee lama dhihi karo yaa ka qayb galay iyo yaa ka baaqday sanadkan sanadihii hore uu ka xamaasad badnaa xuska maalintan waxaana jirta inay ka qayb galeen kaliya ma aha labadaasi meeyare sidoo kale xubno ka mid ah labada aqal ee Congress-ka ee dalkan Maraykanka waxaa sidoo kale jiray wafuud ka kala timid banaanka dalka Maraykanka ilaa iyo Israa'iil kuwaas oo ka qayb galaya maalintan waxaa jirtay in xubnaha ka qayb galay ay kamid yihiin sidoo kale dadka ka caanka ah dalka Maraykanka ee iyagu qaarkood aktarada ah qaarkood celebritiska wadankan dadka looga yaqaano heesayaasha caanka jilayaasha caanka maalqabeennada iyo madaxda dhinaca amniga iyo magaalooyinka wadankan Maraykanka qaarkood meeyaradooda iyo sidoo kale gudoomiyaasha gobolada waxaana ujeedadu ahayd si loo bumbuuniyo oo loo tusiyo dadka maalintan inay tahay maalin ku weyn dadka u dhashay Israa'iil dadka Maraykankuna ay ku barbar taagan yihiin haddaba arrintan maxay tahay caqabadaha ka imaan kara dhinac markii la eego gudaha dalka Maraykanka waxaa xusid mudan in wadankani uu yahay wadan dimuqraadi ah qofka waxa uu diidana uu diidi karo Sokhran Mamdani waxa uu muujiyay markaasi geesinimo iyo hal adeeg asaga u gaar ah waxa uuna banaan la soo istaagay go'aankiisa ayada oo laga yaabo xataa dadka maanta u dabaaldegaya in ay Israa'iil markaasi quweeyaan maalinteedan dawladnimadeeda iyo ilaalinta danaheeda gaarka ah in badan oo kamid ah ayagoo qalbiga ka nacaya taasi haddana ay u arkayaan maslaxad inay ugu jirto ama cabsi ay qabaan awgeed ay u sameynayaan haddaba Mamdani oo dhowr iyo 30 sano jir ah meerkii ugu yaraa uguna horeeyay ee muslima ay soo maray magaaladaasina uu yahay asagu ayaa waxa uu qoray 10 lama ilaawaan ah oo uu siiyay dadka Israa'iiliyiinta ah waxaana jirto dhinaca kale arrintan in ay tahay mid dhabaha u xaareysa in siyaasiyiintu waxa ay rabin ay ku dhiiran karaan in ay diidaan si ka bedelan sidii waayadii ugu dambeysay la arkayay isla markaasina
dadka ku dhaqan gudaha dalka Maraykanka aysan erey ka daba dhihi karin dadka Yuhuudda ah amaba Israa'iiliyiinta ah ee ku dhaqan waddankan Maraykanka. Sidaad ogtihiinba xiisadda bariga dhexe ka jirto waxa ay saameyn xoogani ku leedahay gudaha dalkan Maraykanka. Madaxda uu ka mid yahay madaxweyne Donald Trump iyo ragga kaleeta ee ku jira dowladda Maraykanka, gaar ahaanna xisbiga Republicaanka ee haatanba talada waddankan gacanta ku haya. daawadayaal inta aynu barnaamijkan mid lamida ama falanqayn noocan oo kaleeta ah aynu mar kale hawada ugu kulmi doono, waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh